agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha gudaha ayaa maanta soo gaadhay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Mas'uuliyiintani ayaa waxay kormeereen mashruuca horumarinta GBLG kaasi oo sanadkan loogu talagalay safmarka uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay bulshada. Indhayn kadib mashaariicdii la hirgeliyay waxay kulan xog waraysiya dowladda hoose ee degmada Caynab kula yeesheen mas'uuliyiinta degmada Caynab iyo waliba labada wasaaradood ay khusayso waa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar. Waana kuwan mas'uuliyiin degmada oo ka warbixinaya iskuul oo shana farxalka loo sameeyay shana loo sameeyay suuliyada ayaa hadda mashruucan noogu jiray 10kiiba sida runtii way dhameystireen dhaweyna dhamaan agaasimayaasha guud iyo shaqaalaha hawlwadeenada ee kale oo ugu horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo injineer Jiciiro kulli hawshan kulli oday waa araga oo aan ognahay maadaama maayiradan la soo shaqeeyay muddo fara badan caasimadda ka shaqeynayay markii xigta runtii waxaan ku faraxsanahay mashruucan hadda dabagalkiisa ee kormeerkiina tihiin in la soo gaadhay degmo ahaan waxaan noo qabsoomay hadda qaybtii waxbarashada sida baahiyaadka iyadoo laga duulay baahiyaadka mar meesha hor yaala 10 iskuul baan hadda wax ka qabanay ruuxantii wax weeyaan qaybtii caafimaadka dalabkii baa la bixiyay hadda qandaraaskii baa la bixiyay alaabtii qaybtii ugu horeysay hadda la keenay iyaguna processkii bay ku jiraan waxaan jecelahay ama ku dadaalinaa xoog aan saarina sidii ay u dhameystirmi lahaayeen waanu ku faraxsanahay in kormeerkani noo yimaado oo wixii aanu qabanayna ay arkaan wixii naga dhimanna ay ogaadaan in haddii Allah ka dhigo wax walba inay sidoodii ay ku muuqdaan oo u baxaan inaan wax ku darno mooyaane wax ka dhimayn. ugu dambeyntii halkaasi waxaa si wada jir uga hadlay mas'uuliyiinta wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada iyo caafimaadka. waxa aanu maxayday u nimi kormeerkii iyo kuurgalkii barnaamijkan GBLG-ga qaybtiisa COVID-19 waa qaybtii ugu horeysay waa qaybta emergency-ga ka hortagga iyo ka taxadirka aynu ugu talagalay marka waynu sii wadanaa waxa kormeerkana uu noqonayaa in waxyaabihii barnaamijkan ku qoraa in lagu talagalo lacagta in lagu qabtay in kale ayaanu horta marka hore bilaabayno bilowdeen iibisaan alaabtii maanta halkan waxaanu joognaa magaaladii Caynabo oo aynu eegaynay degmadan oo kamid ah degmooyinkii ka qayb qaatay mashruuca yara COVID-19 bal mashruucaasi siduu u fulay iyo hawlihii sidii loo bilaabay waxaan arkaynay bilow fiican aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iskuulada mas'uulihii loo sameeyay farxalkii oo la sameeyay iyo caafimaadkii oo qoladii wacyigelinta iyo qolooyinkii loo sii daayay mushaarkii agabkii kale oo aad bixiseen oo iyadana la soo iibinayo bari la gudoomayo saad noo sheegtay waa bilow fiican runtii sidoo Jiciirba sheegayna waana laga yaabaa in mar labaad la isku soo noqdo iyadoo dhameystirkeeda la eego ujeedada socdaalka iyaguna sidii loo idin sheegay waxa weeye inaan xogaal u noqono wax qabadka degmada iyadoo degmada sanadkan bilowgiisii ay ka mid ahayd 3 degmo ee dawladdu ku soo fidisay mashruuci GBLG bulshada waa intaasoo lagu sii dadaalo la joogteeyo oo dawlad dhexe iyo dawlad hoose iyo shacab iyo hay'ado iyo wixii kasta oo la qabto de wax qabadkoodii muuqdo oo tayo yeesho. وعلي آدم درع علي تاني وركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynab.